ciise warwadi jecel dad gobol heesta ugaaska iyo heesta ciise baan sameeynaa warigii sheegay ninkii la oran jiray abwaanta haka sababta uu gadabuursi mar walba caayaya inay tahay Ismaaciil Cumar Geelle inuu ku socdo iyo qolada ciise uu xoogay ka cuno way daawada waa sidaad aragteen ee soo dhawaada waxa idin hayaa xog muhiim ah oo xasaasi ah ee ku saabsan kulankii ay wada yeesheen abwaandaha oo abwaanka geyga geeska Somaliland si aad loogu yaqaano iyo sidoo kale ugaaska guud ee beesha ciise ee kulankoodii muhiimka ah iyadoo abwaandaha uu carabkiisa ku sheegay in beesha ciise ay yihiin dad la jecel yahay dad sharafan oo mudan iyo sidoo kale ugaaska guud ee beesha ciise uu ku sheegay inuu yahay nin karaamaysan uu ka soo duceysay muuqaalada ayaa noqday kuwii ugu saameynta badnaa 24 saac ee baraha bulshada ku faafay ee la hadalhayo dhinaca kalena ciidamada booliska Boorama ayaa gacanta ku dhigay dhalooyin aad u tir badan oo khamri ah kuwaas oo la sheegay inay wateen dhalinyaro gawaarida bajaajta fudud ee mootooyinka bajaajta ayaa lagu soo qaaday iyadoona la sheegay in lagu qabtay bar kontaroolada kamid ah halka oo ay ilaalinayeen ciidamada dowladda ee Somaliland waxay sheegeen inay gacanta ku dhigeen ilaa dhowr dhalo oo konton iyo in ka badan oo dhalooyin oo khamri ah kuwaas oo la doonayay in lagu carqaladeeyo ammaanka sidoo kalena ay sheegeen in arinka ay ku hoos duugan tahay arrimo kale oo duulaana oo la doonayay in deegaanka lagu fuliyo daroogada noocana in la soo geliyo maxaa xilligan ku soo aadiyay iyo Oodal Iseed qorshaheeda xilliga cabsida ay taagneed oo ciidamada Somaliland heegan buuxay galeen maxaa keenay oo iminka ku soo aadiyay iyo sidoo kale yaasa ka dambeeya ma ciise ayaa doonaysaa in fasahaadiso ee Boorama iyo arrimo kale oo xasaasi ah ayaa idin kaga haya halkan marka hore hadaan ugu cusubtahay nagu soo biir subscribe saaro ee channelka like garay share garay si aysan ku dhaafin xaqiiqo dambo iyo war kale hadaba muuqaalada wararka ay idin soo sheegay xaqiijintooda ayaa sidoo kale idin kugu reebaya ee qaybta ugu dambeysay ee muuqaalka si aad u ogaataan sidoo kalena aad u dhageysataan wararka iyo war saxaafadeedka ay ka soo saareen ciidamada booliska iyo kulanka looga hadlay ugaaska guud ee beesha ciise iyo daaha looga hadlay arintooda oo iyadoo xaqiiqo ah oo muuqaal ah ayaa halkan idin kula wadaagaya ee daawadayaasha sharafta leh waaya aynu gudgalno abwaandaha ayaa la kulmay ugaaska guud ee beesha ciise kadib muuqaalo maalinimadii shalay ahayd baraha bulshada ay ku faafeen taasoo ilaa maanta ee la hadalhayo iyadoona abwaandaha uu sheegay in beesha ciise ay jecel yihiin aqoon-yahanada iyo sidoo kale dhalinyarada ee beelaha Isaaq ayaa si aad uga cadhooday falkan iyagoona sheegay in ninkan oo daa la yiraahdo uqdad gaar ah uu hayo reerka Isaaqa sidoo kalena loo baahan yahay in gacan bir lagu qabto aqoon-yahanada iyo dadka cuqaash ee ka soo jeeda reeraha kale ee Somaliland degan marka laga soo to kuwa ciise waxay codsadeen in xabsiga si degdeg ah looga taxaabo maadaama ninkan oo arqalad uu ku yahay nabadda ee Somaliland waxay sheegeen inuu la kulmay qof diiday gabi ahaanba nabadda Somaliland inay nabad noqoto qof diiday ayuu la kulmay iyagoona ay sheegeen in loo baahan yahay in gacan bira ee lagu qabto hadaba aan kugu reebo muuqaalka ila dhageysoba warigii sheegay ninkii la oran jiray abwaanta haka sababta uu gadabuursi mar walba caayaya inay tahay Ismaaciil Cumar Geelle inuu ku socdo iyo qolada ciise uu xoogay ka cuno bal hadda hadalkan maanta uu yiri ila yar dhageysiyo wixii dhacay ciise warwadi jecel dad gobol heesta ugaaska iyo heesta ciise baan sameeynaa ciise ilaa waan bogsanay laba kale dadka way isaga dhowlay heesta ugaaska iyo heesta ciise baan sameeynaa laba kale dadka way isaga dhowlay oo waxay isugu agaasanahay labadooda waxay isugu agaasan waa dhawaanshaha way wada dhashay warwadi jecel dad gobol anigu way loogahay way ciise gobiin isku bahayno reer kasta uu gob reerka ciise gobnimadeeda cidna ma dafirin maxaa la isku hayaa weey halka bal hadaba ii dhigi waxaan ka hadlayaa daahagaas maxaa geeyay halkan daahagaas waxa geeyay bartan horeyna waan idinku sheegay imikana uu kugu celinaya maalinta waxaad arki doontaa daahagaas oo madaxtooyada Djibouti ka heesaya halkaana loogu garaacay music iyo hawlo iyo halka fanaaniin geeyo hawlo Djibouti ku socda
sababtana aan kuu sheego daahagaas marka uu gadabuursi hal maalin 3 jeer maygu qaato makarafoon uga haduu gadabuursi ku caayi macnaheedu ma yahayn gadabuursi nacayb iyo sheeko kale horta waxay ahayd Ismaaciil Cumar Geelle ayuu ka diyaarsanayay fariin halkaas ka baxo idinka arkay qolyaha Ciise labada oday baa la yiri waxaan isku balmaalaya labada oday buu yiri waxaan isku agaasay weyn iska oo gadabuursi ma ku agaasnayn way hadii la yiraahdo dhawaashana saddexdaba waa dir wax la yiraahdo bani Axmed meelay ka jirto ma jirto waa barnaamij la sameeyay isaaq cid ay walaalahaayeen wada socdeen ma jirin ciisan inay walaalahaayeen wada socdeen ma jirin Soomaalida odayaashooda ay ku abtirsadaa inkasta ay isaga kaligiis ka socdo dir iyo waxba la sheegaa dir hadii la yahayna ciisana waa dir isaaqna waa dir gadabuursina waa dir ninka doonayay inuu intuu halka ka baxo Ciise iyo Jabuuti intuu taga yiraahdo gadabuursi baan eriyaa oo Ciise wax la yeelanayaana oo Jabuuti iyo diridaba ayaa wax la yeelanayaa halkaasaan gadabuursi ka socaya وقردوس سبب طلعن هو شاب مدحوينها سوماليلاند عيدي ستوسو ugu bareeray Ismaaciil Cumar Geelle Soomaaliya wali fargelin bay wadaan talisnimo wadaag waa inay sameeyaan waa inay dadkayga u bareeray madaxweynaha waxaan ku niri madaxweyne wali waxaad nagaga dartaa safaaradda Turkigana ina dhaaf si qoladaasi hal mar inoo wada dhaafto waan sir rajaynaa inuu taan sameynto haddaba daahagaas waxa diri dhaba iyo Caaisha iyo Jabuuti ka yaala anu ma garanayo waana loo yeedhayaa waxa lagu yiri kici dadkan shucuurtooda kici isaaq inay gadabuursi nacab yihiin tuskuwa fara badan baa raacayo labayna ku dhex jirnaa maaragtay gadabuursi Ilaahay baa u heelinaya isaaq oo nacabiyo Ciise oo nacab ku dhex jiraan wax noocaas waa kuwa siyaasiyiinta ee gadabuursi leh ee isaaq leh ee cid walba leh ee loogu celcelinayo sida ereygan loo yiraahdo sayla iyagaale Ciise saxsan maxay tahay buuga xeer Ciise waa buug caadiya waxyaabo noocaas oo ololeynaya reer kasta leeyihiin gadabuursina way leeyihiin oo ina abiibiyo kuwa fara badan baa jira Ciisena isaaqna way leeyihiin kuwa fara badan baa jira laakiin raashaq saaq lama qabaan ninka hadduu habar jecel ku metelo de habar jecel way joogan laakiin waxa uu sheegayaa dawladdu waa inay xidho daahagaas hadday rabto iyadu bulshadan in la kiciyo oo reer awdal la kiciyo oo intuu halka inay yari ka tago yiraahdo abwaan baan aho waxaan doonaan sameeynaya halkaasaano maxay toy Ciise baxayliye kan kala bal maxaa u diray waradeero abwaan miyaano hayninkani warabwaanku maanu umada u dhaxayn warabwaanku maanu farta iyo afka Soomaaliga ka shaqeyn miyaanu boorame iyo Jabuuti u dhaxayn ma siyaasiba ma sultaanba ma waxay sayeen gadabuursi ma jaar buu leeyahay miyaanu ninka ka yimid ahayneen meesha ugu bariyay reer Sheekh Saxardigaan maxaa dhibay maxay dawladdu ugu eegaysaa ninka bulshadan kicinaya maxay dawladdu ugu eegaysaa waxyaabaha noocan oo kale ay u eeganaysaa shalay toole wixii ka dhacay awdal weyn oogay inay maanta rag reer Sheekh Saxardi waxyaabaha sameeyaan oo waliba dad magac la oo sidaahina ceeb bay ku tahay dawladdan hadda Soomaaliland waxaan leeyahay ورجع نوع عن ضد كأني كأن بالشباب وحول بس كتر هذا عليه تينا هذا الرجال ضد كنا لقى قبض وضعها جاسوحن وضع ووالدي فان وصار ضعفي سوجا وصار ضعفي ستيريو تبين يقرن مو وصار ضعفي حال كاسو شريطة بجد بورسما صاد دانتي وضعها جاسو حسن هو نريدي مصدقها جاسنا نسيج كبر كرير كلا دانا يا هدو جد بورسني كأكيد كردني هي dee waa la arkay kliibadiisii halana tusaha cadeeyo muxuu reerka kula culoobay muxuu reer Sheekh Saxaaqi iskaga toliyay magaca reer Sheekh Saxaaq isticmaal yaa u dirtay inuu magaca Saaq intuu tunka ka qaato
uu intuu diri dhabadya la taga bahashii uu yidhaahdo dadkeenu iska xignaa berritoole waxaa ku sii xigaysaa ismaaciil cumar geella ii yeedhay isagii abwaano iyo niman kale waxa lagu celcelinayaa markaa haddaan nahay reer sheekh saxaaq waa inay noo hiiliyaan waxaanu nahay annagaa iskale saylac sheekooyinkii buuggii waa in lagu dhigo iyo waxyaaba lamida marka waxaan idinkula talinahaa dalkan iyo dadkan si loo kala nabad helo dadyowga bulshada kicinaya weliba abwaanada iyo dadkaa waaweyn ay ka mid yihiin dowladdu waa inay ka qabato haddii aysan ka qaban ceeb iyo dhibaata ka iman inanka yare boorama jooga ee shalay toole loo soo dhex raacaya lacag la siinaya kan kale berri toole jaanis buu helaya waayo bulshaa taageeraysa marka noocaa la arko reer sheekh saxaaqna waxaan leenahay adaraf xumada iska daaya erey xumada iska daaya waxyaabahaad ku hadlaysaan iska daaya abwaanadiin iyo dadkiina qabsada dowladdu ummaddan ha kala qabato dhex ha noqoto oo ha kala jaahiso wixii shalay toole boorama ka dhacay waynu arkanay ereyada la isticmaalaya waynu arkanay saamigii wixii ay ka hadlayeen lagama hadlin dastooriyo waxyaabihii ay ka hadlayeen lagama hadlin waxaasoo dhan iyagay jiraan isagoo ugaaska yimid suldaan wabar yimid cid kastaada timid haddana mashkiladii wada aragta in maalin kaste 140 nan inta la soo qaada hargeysa la keeno oo xataa loo quuri waayina boorama lagu xiro inay abwaanadii iyo dadkii waaweynaa mas'uuliyiinta dalka ee la filayay inay ummadan isku keenaan inay intay halkaa soo fadhiistaan cay iyo bahal la soo istaagaan waxaan waa dhaga hadal iyo Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu geeru kharashaad baa lagu bixiyaa lacaga lagu bixiyaa waxa la kala dilayaa oo lagu celcelinayaa sirra sheekh saxaaq iyo dibus la isku diro inta uu sheegay dowladda haddii ka qaban weydo ummaddu iyada talaabo qaadaysa barnaamijka sheer garay la wadaag saxaabtada aad iyo aad baan ku salaamaya waxaan ku soo qabanay khamrigani halkan ka muuqda waxa khamrigaasi lagu soo qabtay 5 bajaaj iyo 5toodii dirawal iyo eedeysanayaashii watay muqaadaraadkana waxaan bulshada ka codsanaynaa oo mar labaad ka codsanaynaa mar saddexaad ka codsanaynaa daayirteeniba ku baaba'aysa dhibaato weyn buu u leeyahay daayirtii waxaad arkaysaa maanta halkaa waxa igu yimaada maalin kastaba intaasoo qof oo ka camanaysa caasiwaali wax kale ma keeneen muqaadaraadka keenay xayshad iyo khamrigaas keenay abaha dhalowna ilmaha waani muqaadaraadka la inagu xaday carruurta la inaga jeedinayay aan meel uga soo wada jeedno hawlgalkiisina waan ku jirnaa xooggiisina waanu bilownaa haddii ilaahay idhaa waanu ku guulaysan doonaa bulshadana tilmaam fiican bayna siiyeen inanka yar markuu xayshad iyo khamri ka dhergo waalid ma yaqaano ehel kale ma yaqaano shaqo ma yaqaano gurigiibu dib ugu noqonaya awlaaddaa soo dalxiis tagtay gobollada Soomaaliya ka timidayna si dhaqan xulmay socon si akhlaaqad fiican bay u socdeen iyaguna dhibaato ismay geysan bulshada kalena dhibaato u meeyay iska qaybta boorama saldhigyada ee hawlfulinta ku jira ee toosinta magaaladii amnigeega sugay aad baan ugu mahadnaqay ciidamada booliiska ee magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal oo iyagu mar walba laba jibaaraya hawlgallada ay ku sugayaan amniga bulshada iyo badqabka shacbiga ayaa hawlgallo ay sameeyeen waxa ay ku soo qabteen muqaadaraad kala duwan oo markaasi la doonayay in gudaha loo soo galiyo magaalada soo qabashada muqaadaraadkani kadib waxa maanta warfidiye kala hadlay taliyaha qaybta gobolka Awdal taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Boorame iyo taliyaha laanta dambi baadhista ee CID-da waxa ay markaasi ka warbixiyeen hawlgallada ay ciidanku sameeyeen iyo muqaadaraadkani kala duwan ee hawlgalladaasi lagu soo qabtay sidoo kale saraakiishani waxa ay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen dadkii watay muqaadaraadkani iyo gaadiidkoogiiba oo ay hadda ku jiraan gacanta ciidanka booliiska saraakiishani oo murahaasi ka hadlayeen waxa hadalladoodii kamid ahaa waxaan doonayaa inaan la wadaago bulshada ku nool magaalada Boorama ama gobolka Awdal hawlgalkii ay booliisku sameeyeen bishan ugu dambeysay ee ku saabsanaa la dagaalanka muqaadaraadka iyo daro iyo xashiishada in booliisku soo qabtay khamriga halkan inaga muuqda ee tirada badan leh waxaa jirta in gobolka Awdal uu leeyahay xuduud dhow dalka Itoobiya oo lagu sameeyo daraji khamrigani lagana soo gudbiyo lagana soo waarido iyadoo lagu soo waaridayo bajaaj lagu soo waaridayo dhabarka oo la soo deglaynayo booliisku wuxuu sameeyay hawlgal ballaaran oo uu ku qabanayo hawshaas kaga hortagayo waxaan ku soo qabanay khamrigani halkan ka muuqda waxa khamrigaasi lagu soo qabtay 5 bajaaj iyo 5toodii dirawal iyo eedeysanayaashii watay dhammaantood waxaan horgeynay garsoorka
waxaan la dhegeysan doonaa dacwadooda haddii alla idmo waxaan bulshada reer Boorama faraya in ay la shaqeeyaan booliisku wuxuu shaqeeyaa bulshada ka mid yahay daraagisan wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nabadgelyada khalkhaliya dadka wax u dhima ee amniga caqabada ku noqda waxaan ku boorinay markaa bulshada reer Boorama inay la shaqeeyaan maadaama gobolkeeni uu yahay gobol ku teedsan xuduudiisu ku teedsan tahay dalka Itoobiya oo laga soo wadaado daraagiskan iyo khamradani waxaan soo jeedinayaa annagu oo aan bulshada la soo sheejin waxa ay la kulmaan ama ay arkaan inay booliiska la soo wadaagaan annagoo mustaqbalka dhow u samayn doona lambar telefoon oo ay soo wacaan oo central ah oo ay la wadaagaan booliiska qofkii arka qof daraagis ama daraagsan ama sita ama ka ganacsanaya khamrigan la soo qabtayna ma aha midkii la cabayay dhammaantiis waa ganacsi waa dadkii ka ganacsan dadkan soo qabanay waa bajaajyadii Itoobiya laga soo waaridayay waxaan rogeynay garsoorka waana la xukumi doonaa insha Allah waan ku cadeyn doonaa saaka halkan waxaan ka shaacinayna aniga taliyaha qaybta taliyaha CID-da horta booliisku wuxuu abuuray nabadgelyada iyo la dagaalanka mukhadaraadka khamriga aad aragtaan ee halkaa aanu ku soo bandhignay waxaanu qabanay toddobaadeedan eedeysanayaashii lagu qabtayna way xidhan yihiin oo qaar garsugayaala iyo qaar la xukumaba way leeyihiin magaaladuna dadweynuhuna aad bay noola shaqeeyaan runtii marka la sheego iyagaa nahaga iyagaa wixii xumaanaya arkaan soo sheega waxaana rajaynaynaa toddobaadkan imika inagu soo aadana maanta bilowday ciiddii laga baxayna iyadoo maalmo nasashaa laga baxay inaan howlgal adag sameyno haddii la idhaahdo anuu taliya saldhig ahaan saakadan waxaan ballaminaya ciidankayga si aan howlgal soonaha uu saldhiga dhexe xukumo uga howlgal cusub uga galo alxamdulilah ilaahay baa nagu guuleeyey intaa iminka ad arkaysaan waxyaabo kasii badanoo dambana inaan qabanaan ku rajo weynahay muqaadaraadkana waxaan bulshada ka codsanaynaa oon mar labaad ka codsanayna mar saddexaad ka codsanaynaa da-yarteenniba ku baaba-aysa dhibaato weyn buu u leeyahay da-yartii waxaad arkaysaa maanta halkaa waxaa iigu yimaada maalin kastiba intaasoo qof oo ka camanaysa caasiwaalid wax kale ma keeneen muqaadaraadkaa keenay xayshad iyo khamrigaasaa keeneen inanka yar markuu xayshad iyo khamri ka dhergo waalid ma yaqaano ehel kale ma yaqaano shaqo ma yaqaano gurigiibu dib ugu noqonaya waalidiintiibu dib ugu noqonaya markaa bulshada waxaan ka codsanaynaa waajib baa ina wada saaran hadday booliis tahay iyo hadday bulshada tahayba gacantiinna inaad ku qabataan ood annagana nagu hogaamisaan meeshii wax ka soo galayaan iyo meeshii balaayadaasi ay nooga imanayso ayaanu aada iyo aada idinka codsanaynaa maadaama da-yarteenna ay ku baaba-ayso oo maxaanku dhahdaa dhibaato xoog ay nagu hayo halkan xuduudda Itoobiya ay nagaga furan gobolkan awada lagu wada aragteenoo gebigiisuba waa xuduudda Itoobiya ilaa koorne Itoobiyana waa wadanka aan bahalku mamnuuc ka ahayn muqaadaraadka meeshii la doono lagu iibinayo halkan waa lala soo lugeynaya lug baa lagu keenaya dameeraa lagu keenaya gaadiidka kantarooladan ku baadhnaaba lala soo raacayo bijaaj meelaha ku dhuumata ugu badanoo baalaha bijaaj oo dembi kastaba qayb ka ah ayaa ugu badan waxaa soo geliya magaalada laakiin gaadiidka kale ee kantaroolaan u taaganahay ha yeeshee dadka lugeynaya iyo dadkaa bijaajta wata wey waxa soo gelinaya insha allah toddobaadada nagu soo socdana howlgad adag baan sameynaynaa waxaan maanta ilaahay ugu mahadnaqayaa dhalinyartii sida ka qaldan markii hore wax u fahamsaneen oo nala shaqeynaysa laftigeygii maanta oo ka soo degtay arrimihii gobolkuna xaaladiisu 100% ay noqotay ciidul adxadii alxamdulilah nabadgelyanu ku ciidnay waxaynoo yimi dalxiisayaal fara badan awlaaddaas oo dalxiis tagtay gobollada Soomaaliya ka timidayna si dhaqan xun may socon si akhlaaqad fiican bay u socdeen iyaguna dhibaato ismay geysan bulshada kalena dhibaato uma geysan dakhli baa gobolka soo galiyay reer Boorama ahaan dalxiisayaasha ilaahay nabadgelyo nooga dhameeyay naga noqdeen xalay iyo saak ay naga dhameystirmeen ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa iyaguna nabadgelyo ku ciideen nabadgelyada waxay tilmaamaysaa gobolku inuu ammaan yahay wali dadkii sharaf bay noo hayaan gobolladii kale dariskeenu Booramadii la yaqaan oo arkaan waar waynu nahay waxaynu isku haynaa in hoos isu nidhaanayna weey magaalada inay dhibaato ugu geysan keena qaldan waan toosinayna ilaahay baan u mahadnaqayaa
amnigaana siiyey ee caafimaadkaana siiyey alxamdulilah liska qaybta boorama saldhigyada ee howlfulintaa ku jira ee toosinta magaaladii amnigeega sugaya aad baan ugu mahadnaqaya khayr allah idin siiya baan leeyahay waxaan aad u bogaadinayaa aad iyo aad ilaahay baa loo mahadnaqaa allah mahad iskale ee mar labaad waxaan u mahadnaqayaa taliska ciidanka booliiska taliyaha ciidanka booliiska ee meel kastoo booliisku ka howlgalayo ay ku xidhayiin isaga hadday baasiin noqoto iyo hadday taakulayn kale noqoto iyo haddii ciidan lagu soo daro hadday dhaqaalo noqoto nala daba taagan ayaan aad ugu mahadnaqaya taliyaha ciidanka booliiska taliya xigeenka koowaad ka labaad hogaamada booliiska taliska guud ee booliiska waa mahadsantihiin hoggaamaanu idinla hadalnaa markaanu taliyaha ka soo durugno hoggaamaanu idinla xidhiidhnaa talooyin badan waan idinka hela aad baad u mahadsantihiin horumar baa la wadaa wiilkuna wuxuu u dhashaa diintana kor inuu qaado dalkiisa meeshuu ku dhashayna horumar u sameeyo kolley rag iyo dumarba waxaa loo dhashaa waa sidaa waalidku ilmaha wuxuu tababarayaa uu wax soo kordhiyo ilmahan isagana faa'iido ku soo daro hadduu ilmihii noqdo mintuu guriga ka baxa wax soo shiidu waalidkii daba socdo ilmaha ii sii daaya ilmaha sidan ii yeela uu yidhaahdo oo ilmihii uu doonaya inuu ku faa'iido badan ka gaadho hadduu noqdo war saasaa jirta awlaaday war iska fogaado waxaa iska fogaado ixtiraama waalidiintiina siday iduu jahaynayaan ula socda dowladnimadeenna xaq dhowra dowlad la-aani waa dadnimo waa baaba lama noolaan karo runtii cidaad cid kaga dacwato haddaad weydo ma noolaan karaysa wixii ilaahay ku siiyo unbaa lagu noolaan karaaye caafimaadka allah ku siinaya caqliga allah ku siinaya ku abuuray islaam kaa dhigay makhluuqiisuu fara badan yahay wuxuu kaa dhigay bini aadan muslim buu haddana kaa dhigay rag buu qaarkeen kasii dhigay weliba rag baa noqday dhulkan shiidaya waa nooma fiicna aabbaha dhalowna ilmaha waani maqaadaraadkaa laynagu xadaya carruurta laynagaga jeedinayo aan meel uga soo wada jeedno howlgalkiisiina waan ku jirnaa xooggiisiina waanu bilownaa haddii ilaha yidhaah waanu ku guulaysan doonaa bulshaduna tilmaam fiican bayna siisaa dalka waa loo kala weyn yahay nin tayadan waaweyni intaanu u xajinaynaa waa intiina yaryare qaar wax tuurtuurayaan maanta ay ka bogsadeen tuurtuurkiina ilaahay ka daweeyey alxamdulilah waar annagu haddii ilaahay yidhaahdo haddayna geeriina helin gabow baana reebayo aqalkaan iska geli doonaa dee laakiin ragga nagala hadhaya waa idinka dee halkaad nagala hadhaysana baabiin rag baan anaguna kala hadhnay oo waalidiin baa ka tegtay halkan oo na soo gaarsiisay waanu la qabana waanu ka tegey baanu ka wadnaa kor waan uga wadayna marka insha allahu dhalinyartaa yaryarna waxaan ku waalinayaa war xafiiskaa fadhiyo qaarkiinunbaa berri fadhiisan dooneen allah idin toosiyo sida wanaagsan allah idin tilmaamo waalidiintiinana carruurta tilmaama baan leeyahay booliska gobolka awdal aad baan idin salaamay aad baan idin mahadsantihiin hawsha aad wadaana halkaad ka sii wadeen dhiirigelin iyo tilmaanna waan idinla garab joogna